kulankan maanta boorama lagu qabtay waxaa lagaga hadlayay xalinta khilaafaadka dhulka ee muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ugu soo kordhaya gudaha goboladan awdal iyo salal waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta guddiga nabadgelyada ee heer gobol iyo heer degmo cuqaasha iyo waxgaradka goboladan awdal iyo salal iyo xeer ilaalinta gobolkan awdal kulankan waxaa ugu horeyn ka hadashay Leyle Maxamed Ibraahim oo ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waxayna sheegtay in kan ujeedadiisu tahay sidii looga baaraandegi lahaa xalinta khilaafaadka dhulka ee ku soo batay deegaanada goboladan awdal iyo salal waxayna hoosta ka xariiqday in wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland ay ka go'an tahay inay soo afjarto khilaafaadka noocaasi ah ee dhulka la xidhiidha taliyaha qaybta booliska ee gobolkan awdal oo isaguna kulankan ka hadlay ayaa waxa uu ka codsaday ka soo qaybgalayaashii kulankan gaar ahaan cuqaasha inay garab ay ku siiyaan ciidamada booliska loo soo afjari lahaa khilaafaadkaasi dhulka ku saabsan waagi bari waxaan ku jiraa waa gar waagi bari waxaan ka hadlaynaa waa beer waagi bari waxaan ka hadlaynaa waa banaan taaga waagi bari waxaan isku haysanaa waa buur waxaynu u baahanahay hadaa cuqaashi tihiin iyo odayaashii ala doonaya talada idinku caqligiina ku jira ayaa keentaan inaan wax ka xallin karayno in la isku waafajiyo ay wax yar qaran noqdaan maayarka magaaladan boorama Cabdiraxmaan Shidabile ayaa kulankan waxa uu hadallo digniin ah ugu jeediyay dadka khilaafaadka dhulka gaar ahaan muranka xagga beeraha uu ka dhex taagan yahay dhulka qofku leeyahay uu tilmaamay horena uu tilmaanaa inagoo aan sharciga eegino waynu iska garanaynaa abadee faaga irfiid qodoon baa beera dhulka irfiid gasho munaafacaad ka soo baxun baa beera waxaana keena inteeda badan imika dhul la'aanta iyo dhulkii dadkani ay lahaayeen markay waayaan xoolahana way islaynayaan xoolahana ku dar ilaa xoolihiina laftoodii way islaynayaan oo marka ay magaaladii soo galaan ay wax qaribaan ee ay wax cunaan waayaan hadhuurka islaamta hor yaalla waxa kale qaaday taasoo ka imanaya gudoomiyaha gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci ayaa isaguna waxa uu gabagabadii kulankan si adag ula hadlay cuqaasha gobolka Awdal noo fudaysan xalishan oo idinku xalkii wada intood si daacad ah uga wada qayb gasheen oo aad soo isteen oo aad wada hadalsiisteen oo idinka ilaa joogo goobtii joogay oo walba wogay ninka kareerbeedsaad ku sheegtaan atiraadaan halkaas dadkiisa san ugu yeedno idinku naga horeysaan way maxaan haynaa gudkii baad idinku sidataan labadii nabadoon mid walba gudkiisii wato uu leeyahay halkaas lagu gooyay mooyaane socon mayso ayaa noo yimaada runtii waxa weeyaan waxyaabaha aan su'aasha iska weydiinayna waxa weey intee u shaqeysa maxay ahayd maamulkii dawladda goobkeed intee aan shaqeyn ninkan u shaqeyn ee aan nabadda ka shaqeynin mushaarkoon ka joojiyaa runtii waan sheegaya si kastaba ha ahaatee kulankan waxa uu noqonayaa kii ugu horeeya oo noociisa ah oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa khilaafaadka dhanka dhulka ah ee muddooyinkii ugu dambeeya hadheeyay deegaanada goboladan awdal iyo salal cabdi fataax axmed hadwanaag news magaalada boorama